Wax ka ogow 5 qodob oo sababa hilmaamka ama ilowshaha faraha badan. Ilowshaha faraha badan ayaa ah mid fara badan ku haya bulshada caalamka, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed. Haddaba qodobka koowaad wuxuu noqonayaa dadka raadiya filimada galmada ah ayaa ah kuwa aad u ilowsho badan, waxaana inta badan maskaxdooda bedela ama nooc kale ka dhiga raadinta filin ama muuqaal galma ah. Dadkaas ayaa inta badan baraha bulshada u soo galay inay raadiyaan waxyaabo xumaan ah oo ay naftooda ku sasabaan, laakiin waxay ka qaadaan ilowsho, caajis iyo hilmaam fara badan. Kaasi waa qodobka koowaad. Haddaba qodobka labaad wuxuu noqonayaa akhris la'aanta. Qofka aan akhrin Quraanka Eebbe ama xitaa kitaab iyo wax la mid ah ama buug uu qof qaray wuxuu noqon doonaa qof hilmaam badan. Ilowshaha waxaa kaalin weyn ka qaata Quraanka oo laga tago ama la hilmaamo. Qofka akhriya mar walba ama maalin kasta Quraanka dib ayay u soo laaban doontaa xusuustiisa. Kaasi waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad ayaa noqonaya qofka inuu hal meel maskaxdiisa aadiyo. Tusaale ahaan, inuu qofka iska dhaadhacsiiyo jacayl, ama inuu buufis isku abuuro, ama inuu meel uun jeclaado, wax uun jeclaado, ama hami inuu hal meel ka yeesho. Tusaale ahaan, jacayl, inuu qofku waddan kale inuu aado jeclaado, inuu waxbarasho jeclaado, inuu kubad ciyaaristeeda jeclaado, oo mar walbo halkaas shay uu ka fikiro waxay ka qayb qaadanaysaa inuu wax walba hilmaamo. Taasi waa qodobka saddexaad. Qodobka afraad wuxuu noqonayaa hurdo la'aanta ama hurdo yarida. Qofka aan seexan in ku filan wuxuu dareemi doonaa hilmaam ama caajis ama ilowsho fara badan. Qofka bini'aadamka caafimaad ahaan waxaa loo baahan yahay inuu jiifto in ka badan 8 saacadood oo xiriir ah. Waxaa sidoo kale qayb weyn ka qaata soo jeedka iyo dhafarka faraha badan oo isku xigxiga. Tusaale ahaan, qofku waxaa laga yaabaa inuu habeenna jiifto waqti fiican, habeenna uusan jiifan. Markaas kama dhigna inaad taam yeeshay 8 saacadood oo xiriirka ahayd. Qodobka shanaad wuxuu noqonayaa balwadda. Qofka balwadda leh wuxuu mar walba halis ugu jiraa inuu dareemo hilmaam fara badan ama caajis. Tusaale ahaan, qofka isticmaala sigaarka, jaadka iyo waxyaabaha la midka ah wuxuu dareemi doonaa hilmaam mar walba ah. Waxaa kaloo la mid ah qofka daawooyinka oo kale isticmaala, isaguna waa la mid, sababtoo ah daraagisku waa qayb ka mid ah balwadda. Fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan, like saar oo subscribe noo saar YouTube channelkeena si aad noo dhiirigeliso, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanidin.